qaxootiga Holland ay ugu horeysay Soomaalida ayaa dibadbax ballaaran ku qabtay magaalada Hague ee xarunta siyaasadda boqortooyada Holland iyadoo dadkaasi cabasho ay ka muujinayeen sharci la'aanta ku haysata Holland iyo xiriir ay ku jireen oo banaanka laga soo dhigay. Dadka dibadbax dhigaya ayaa ka kala yimid dalalka Soomaaliya, Itoobiya, Eritrea, Iraq, Iran, Afghanistan iyo dalal kale oo dhowr ah. Waxaa soo ugu badnaa Soomaalida oo ah qaxootiga ugu badan ee ku nool dalka Holland ee halkaasi isugu soo baxay shalay. waxay indhahaygu ay qabanayeen haween caruur wata dad naafa oo luga aan lahayn waayeel daadu ka daba timid kuwaas oo badi sharci la'aan ah hadana loogu sii dareynaysa gabi ahaan baysan hooy iyo dhaqaale ay ku noolaadaan ay ku joogaan wadanka Netherland. dadka isugu soo baxay halkaasi ayaa waxay joogaan Netherland 5 sano ilaa 22 sano kuwaas oo u badan Soomaalida ka soo hayantay dagaalka sokeeye ee dhibaatada nololeed ee ka jirta dalka Soomaaliya. waxaana halkudhiga dadka isku soo baxay oo ahaa inay yihiin dad ku nool wadooyinka. ugu dambeyntii xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka wadanka Holland ayay u gudbiyeen codsi ay ku doonayeen in eegma naxariiseed lagu fiiriyo qaxootiga banaan jiifka ku ah wadanka Holland. dhinaca isku soo baxa qaxootigaasi waxaa qayb ka geysatay hay'adda la yiraahdo Steel iyadoo dadka halkaasi ka hadlayna ay ka mid ahaayeen barayaal jaamacadeed iyo sharci yaqaano u dhashay wadanka Holland. Soomaaliya halkaas kula kulmay ay qaar ka mid ah kuwii khudbadaha ka jeedinay goobta banaanbaxa waxaa ka mid ah hadaladoodii ku noolaanaya adduunkaasan maabeena meel waydaano kolba cadimeel baan cadimanahay toddobaadka u dambaysa gabadhaasaan la noolahay oo ay caawisa oo maxaan dhahay iga soo kaxay rabadaantiiba iga soo xiraysay banaankii anoo jooga afraad dalku dawladda Holland dawmiya dadaan dalkoodii deganayn sharci u diida dawmiya dadaan dalkoodii deganayn banaanka daadsha dawmiya dadaan dalkoodii deganayn xabsi ku daadsha dawmiya dadaan dalkoodii deganayn dib u celiyo dawmiya haddaan ani dhinto oo isdilo حميد مبارك نظرنا يكون متى مغشى وحاي يدلي نظرنا يدشاني هذا ساعد وحي لقى بلاو نظرنا نوحي كنا الصومالي حوالو الرياء تدفر بدنا الصوماليين اسكو جيرو هويون iyo caruur ayad banaanada geysay marka dalaan haysan ma jirto waxa kamid dadka sharciida loo diiday sonkor baan qabaa maxay ahayday 20 year 22 sano jooga wadanka dacwadaadu way xirantay baa la yiri Dublin iyo oo dadka wadanka la fara kulana ahi wax la igu haysta ilaa hadda ma garan karo marka waxaan ka codsanayaa dawladda Netherland oo maangilid aan weydiisanay inay bini'aadanimada ay ilaaliyaan muslim verdrag bestaat geen vluchtelingen van economische mensen komen omdat is oorlog mensen komen omdat is geweld mensen komen omdat verdragen dat is voor de Somalische gemeenschap ik praat namens de Somalische gemeenschap Somalis hebben uitgezegd van de straat shan baan degala imikana dibadda la dhigay caafimaadkayga waan ka joojiyay wax walba waan ka joojiyay marka sababta garmayno sida loo sameeyo waxaan ka codsanaynaa Netherland inay xuquuqda bini'aadantinimada eegto oo ay wax noo qabato ya nolol baan u soo doonanay uma soo doonanay dadna ay xirxiraan dadna banaan ay dhigaan dadna ay yiraahdaan magaalada ay ruuxaan kama soo adeegi kartiin anigu waxaan dhibka la qabaa kuwa dibadda yaala ee kaamka ku jira ee la dhibaataynayo ee 4 sano ama 5 sano kaam lagu hayo oo aan xaquuqa dalka hadana ku lahayd waxaan joogaa 5 sano ku dhawaad habeeraatee guriga ma haysto lacag kama qaato meesha wax habeeraatee xaquuq aan ku leenahay ma jirto wadanka waxaan joogaa 4 sano joogaa 6 xaruna waan ka yimi inaguna meeshaan ku dhalay istajiraan ku dhalay wax sharciyan haystaa ma jirto Abdul Ibrahim Garyare Universal TV Hague Netherland